maanta ay taariikhdu tahay 6 bisha April waxa dhaqan galay go'aanka xukuumadda Soomaaliland ee lagu joojiyay qaadka garabkayga waxa taagan barasaabka gobolka Hawd Yaasiin Shide ee gudoomiye qaad baad qabateen gaari qaad baad qabateen bal gaarigaas iyo qaadkaas ba faahfaahin naga sii waxa Ilaahay mahadiya annagu oo fulinayna go'aankii gudida uu madaxweynuhu magacaabay coronavirus uu jeermaanku yahay madaxweyne ku xigeenku ay ku xarimeen iyadoo oo ummadda caafimaadkooda la eegayo in aan soo gelin maalintii axadda ee shalayto wixii ka dambeeyay aanu qaad soo gelin dalka Soomaaliland dhamaantiiba ayaa saaka ciidanka booliska anigoo u mahadnaqaya ee gobolka Hawd waxay soo qabteen gaari ay leedahay shirkadda FF gaarigaas oo gaari Land Cruiser oo qaad siday bay soo qabteen oo dalka soo gelinayay 3 maxbuus baa la socday markii aan wada tashanay gudida iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxaanu ku go'aansanay in gaariga la soo kaxeeyo lana soo dhaadhiciyo loo keeno gudida qaabilsan qaranka xanuunka COVID-19ka sida arkayseen markaas saxaafaddu agoobjoog ka ahaydeen gaarigii waa soo kaxaynay waxaanu annagu ku wareejinay laanta birmadka qaranka taliyaha birmadka qaranka nagala wareegay in Axmed Tiirba imika nagala wareegay isagaana gacanta ku haya waxay la tahay waxa laga qaadin doonaa oo gudidu ay ka qaadaysaa xukun bay gudidu soo saartay waxay la tahay waa gaarigii koowaad ee xukunka lagu filinayo qaadkii koowaad ee xukunka lagu filinayo aad iyo aad baan idinkana saxaafadahan idinku mahadnaqaya wabillahi tawfiiq